waxa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiina ku jira iyo acmaashiina سيدرادد حديث النبي يقول لها التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا انتو لابتي ستلمامي نبي عليه الصلاة والسلام صدح جير أيوح إلى الله كعبسه هلكو كتشره الله كعبسه هلكو كتشره إذن قلبك يعاف ما قب كيس أما بكان كيس أما دمشديس ووحيابا وقوم مهم سن وقفك مسلم كيوبا هي إنه إن بدن إيغو warma kuwa qalbigoodu dhintaad ka mid mise kuwa bukaabaad ka mid mise kuwa caafimaad qaba waa saddex darajo oo kala durugsan caafimaad qabka qalbiga waxa ku xidhan salaax ama wanaaga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mid ah riyaa iyo sumca iyo istusbaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa ismaqashiis baa ka mid ah kibir iyo isla weyni baa ka mid ah cujbi baa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina وبلشة أنشري كريم قلوبته وبكوتا وحنا بكيسية قال لماذا هي كفرية وحاب بكيسية معاصدة وحاب بكيسية سيدي ذنوب تقلبك الدكتاء أكل ووينت ومثلا احنا وبهنا أعمال القلوب التي المامو وحنا وحلقنا ولا قلبك إلهي الذكر جيس هي حسكيس قرآن كآخرس كيس أوراد الله يمات كودا صلاة هي عبادات هي واجبات كاللغو فريس مين تودا وحاسي قلبك إنه ليا وحنا والله صافية على قلبك أو الريو الرياضة هي السمعة رياو وعمل قلبية حديث النبي واحد المام صدقك النار تبالله وقهر شدة يا أهل التوحيد كأنك كواسيين صدح دي النار توقوه الرئي أول من تصعر بهم النار بالنبوي صدح توقوه الرئي النار تلقوا الشدة وصدح قلبك كبك وضي حي سمايين أعمال صالحة لكن قصدك إرادة عدة أعمال صالحة وحكا قربين بقل طيب أوام حي وحو نبي المام عليه الصلاة والسلام كوه الريان نار تلو الشدا ومد شيخها وقرآن أخرس بدنا وودي دبتنا وحلا ويدا هذا وحلو برين معاها محط قصة إله هو أنا أخري ويدا هذا هبيني أنا الليل وأطراف النهار بان قرآن كآخرني وحلا يدو حد وآخرنيس إن لو يدا هذا هبل وعالم يوا قارئ يوا نوحي قارنا دينتي نواتي لو يدي ضدك كوي يدا هذا هبل ونعد معانيه وشيخي ووداد الله قد برضو فنيو انت انا هورا لو يري خلاص عند الله وحبك ما خيغان با للي marka naarta qalba la yiraahdo inta sida walba doonaysa intiina heshay mid baa yimaada yiraahdo waan jihaad ilaahu dartaban u dagaalamay waa kan waxa la yiraahdo waxaad rabtaa in lagu yiraahdo hebel waa geesi iyo xagu ka xiga nin baa ka xiga iyo dhankiisa laga soo dhici maayo inta saad rabtay intiina waa lagu yiri ba rabbi yiraahdo aadna naarta gal mid wax bixiyayna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabtoon in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka ku kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu amalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo isafuufid iyo hal lagu sheego iyo miyaanan hebel ahayn aad duddo hadday dadku magacaaga hore u sheegi waayaan iyana waa la midoon waxba ka waa hal baad lagu lisaday Soomaalidu sheegaysa waa aana cid la ku dhacay qulubta maxaa nadiifiya caafimaadiya ilaahay kitaabkiisu inoogu sheego waxa la qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين حق الرب وحيدين كتمي با إلهي لي موعدا وانو إيه وشفاء لما في الصدور لابت وحيكو عافماده لابت محل لغا عافمادينيا wax laga caafimaadinaya aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shubuhaat wa shukuk waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxa soo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaa'un lima fi sudur laabtu caafimaad u yahay nolosha dhan buu caafimaad u yahay laakiin waxa la inoo tilmaamayaa laabe haday caafimaado nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلهي وحينا tilmaamaya qulubtu inay caafimaado in xumaha laga saari karo waxa ka saare caafimaadiyana inuu yahay rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxaynu u baahannahay inaynu dib qulubteena u fatashino qulubteena inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifino daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelno ka daahir yeelno waxa laaliya waxa mubtilaatul a'maala waxa amalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanay salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alahibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirtaa intay qilli ku jirtaa intay colaad ku jirtaa intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intuu rabbiga weynaynaysa oo wax kale oo dhib ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu sameeyno sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin